waxaan noolnahay waqti aad u yaab badan, waqti beenlowgu uu runlow yahay, runlowgana beenlow loo yaqaan. waxaan noolnahay waqti wadamada kuwooda wax walba oo noloshan adduunyo ay ku hagaagsan tahay haystaa dadka ku nool ay dareemayaan inay wax yar haystaan, ay dareemayaan in nolosha kuwa ugu farxadda xun ay yihiin, taasuna ay sabab u noqoto inay maalin walba naftooda gooyaan. waxay naf kasta oo ka fog oo ka durugsani ay dareemaysaa haddaan halkaa tegi lahaa farxaddaydu way dhammaystirnaan lahayd. waxaan doonayaa inaan fiidiyogan kugula wadaago 8 shay, 8daas oo kugu kaalmayn doona inaad ku noolaatid nolol isu dheelitiran. waxaan shaki lahayn qof kastoo ina ka mida markaynu fiidiyo isla wadaagno micnaheedu ma aha inay naftaadu hal mar hagaagayso, laakiin waa inaad qaadid tallaabooyin yaryar oo kooban, kuwaasaana waxay noqon doonaan tallaabooyin waaweyn oo ay markaa ka soo bixi doonto natiijada weyn iyo tayada sare noloshaada ka dhex doonaysid. mushkiladda ku haysataa waxay tahay waxaad doonaysaa inaad naftaada isbeddel ku samaysid hal asbuuc oo keliya. waxaad soo noolayd sannado aad u fara badan, waxaad lahayd dabeecado aad daa'imtay ood ku soo noolayd. waxaad doonaysaa inaad hal mar beddeshid. waxaad ogataa magaalo kastoo deggan tahay ee ballaaran inaan lagu dhisin 2 beri iyo 3 beri iyo 2 asbuuc. waxay qaadatay muddo aad u dheer, waxay qaadatay kharash fara badan, waxay qaadatay dad fara badan inay isu yimaadaan oo taagaan. shayga ugu horreeyan jeclaystiinaan kula wadaago wuxuu yahay runta ku noolow, gabashada iyo dhuumashadana ka soo hoos bax. ahaw qof wanaagsan, ku dadaal, laakiin cidna ha u caddaynin oo wakhti ha iskaga lumin inaad ay kuu gartaan wanaagsanaantaada iyo wanaagga aad leedahay. dad fara badanna mushkiladda haysataa waxay tahay waxay wakhti badan ku bixiyaan inay dadka u caddeeyaan inay yihiin dad wanaagsan. kadib waxaa dhacda muddo dheer markay saa wadaan inay daalaan, kadibna faraha ka qaadan. sababtu maxay tahay oo dhibkuuga yimid waa waxa uu filanayay iyo natiijada ka soo baxday. haddaad marka mar walba ka sugaysid dadku inay kugu ammaanaan waxaa tahay oo kuu gartaan waxa aad tahay oo taytalka aad leedahay laguu garto oo laguu garto in aad darajadaa mudan tahay ood ka sugaysid dadku inay ku ammaanaan oy noqoto taasoo tan ku qancinaysa ee sabab u ah inaad horumarkaba gaartid. ogow bini'aadamka dhammaantood kuma wada jecla, dhammaantoodna ammaan kuma hayaan. sidaa darteed cidna ha ka filin, laakiin adigu naf ahaantaada ku dadaal wanaag, ku dadaal inaad naftaada is-og tahay inaad wanaagsan tahay, waxaad haysaana u wanaagsan yahay. dadkana ha ka filanin in ay mar walba kugu taageeraan oo ay ku tusaan wanaagga aad leedahay, oo ay kuu sheegaan oo tahay sidan baad tahay, sidan baad ku wanaagsan tahay, waxaasaad ku fiican tahay. marna cidna ha ka filin. waxaa dad badan u keenay inay murugoodaan oo korboodaan oo ilmeeyaan waa filashada ay ka filanayaan dadka kale. hadday ka waayaanna qalbigooda hoos buu dhacaya. sawir baa dadka la wadaagtay, kelmad baa dadka la wadaagtay, like baa la saari waayey, fiirsasho badan baad ka weyday, dadkii inaad soo jiidatid way kuu suurtageli weyday. waxba taasoo niyaddaada iyo jabinin. mar haddaad aaminsan tahay naftaadu waxa ay tahay, ku qanacsanow oo naftaadu run ha ku noolaato. shayga labaadna wuxuu yahay noloshu waa isu dheelitirnaan. naxariis lahaw, laakiin marna cidna ha u ogolaan inay kugu dul socoto. waxaana jirta in dadka qaar aysan kala saari karin naxariista iyo nacasnimada. marna ha u ogolaan qof inuu siduu doono kaa yeelo oo kugu tunto oo qalbigaaga ku ciyaaro oo noloshaada ku ciyaaro. haddii qofku uusan noloshaada danteeda marna ka shaqaynin, aad u aragtid inuu dhaawac horumarkaaga ku yahay oo dib kuu hayo, kaasuu naxariis ma mudna. ka faaruq noloshaadana ka durkii hana u dhowaan. shayga saddexaadan maanta jeclaystiinaan idinla wadaaganaa wuxuu yahay ku kalsoonow, laakiin marna ha u ogolaan inuu ku khiyaano. haddii lagu khiyaanona khiyaanada bartaa ku dami. dad fara badanoo waxaa jira aaminsan qof haddii uu ikhiyaano hase yeeshee uu iga raaligeliyo, raaligelinna uu ka bixiyo ficilkii uu geystay, waxay taasu calaamad iyo astaan u tahay inuusan dib ugu noqonayn. laakiin qofka ku khiyaanay, hadday xoolahaaga tahay, hadday jacaylkaaga tahay, iyo hadday waxyaabo kale oo nolosha ka mida ay tahay guud ahaaneed, ogow qofkaasoo khiyaanada maalin kale wuu soo celinayaa. waad ku qabatay, taasaa keentay inay soo ifbaxdo. laakiin haddaadan ku qaban lahayn miyuu kuu sheegi laha intuu kuu yimaado? dabcan maya. haddaba qof qalbigaaga mar khiyaanay marna dib ha u aaminin. marna qof khiyaano kuu quuray naxariis ha u hayn. naxariistu waxay timaadaa oo iska leh qofka kasbada. qofkani hadduu mar qalbiga kaa dhaawacay oo kaa jebiyey, horumarka noloshaada dhaawac buu ku yahay. qofku marka uu ku khiyaano inta badan waxaa walwal fara badan uu ka haya ood la noolaanaysaa.
haddaad xataa wax walbaba ka soo gudubto ka soo tallaabsatid amuu mar kale dib kuu khiyaanaa amuu qofkani waxaan mar kale kugu sameeyaa maxaa walwalka noocaasa kuu gurigelinaya maxaa walwalka noocaasa aad sariir ula seexanaysaa ood ula cuntaynaysaa ood nolosha ula wadaagaysaa haddaad aragtid noloshaada in qofkaasu uu dhaawac ku yahay hase yeeshee kalsoonidaad u dhiibtay uu ku ciyaaray marna ma mudna inaad dib gacanta ugu gelisid waxayna ka mid tahay naxariis la'aanta qofku ay tahay inuu u hayo waxyaabaha dantiisu ay ku jirto shayga afaraadna wuxuu yahay ku qanacsanow noloshaada laakiin taasu yaysan marna kaa hor istaagin inaad naftaada tayadeeda kobcisid ood kor u qaadid marna inaad kor u socotid oo cilmi ahaan aad kobocdid ood maal ahaan kobocdid oo shakhsiyadaadu ay wax ku soo kordhaan oo waayo aragnimadaadu ay kororto marna ha ka gaabin qanacsanaantaad noloshaada ku qanacsan tahay marna yaysan kaa hor istaagin inaad horumarka aad joogtid mid ka sii dheer inaad noloshaada mar walba ku soo kordhinaysid dhinacay doontaba ha noqotee shayga shanaadan jeclaysta inaan idinla wadaagana wuxuu yahay marna farxaddaada ha ku xirin waxaad waayi doontid xoolahaaga qofaad jeceshahay iyo wixii la midaba in badan mushkiladda dadka haysata waxay tahay inuu qofku noloshiisa oo dhan hal shay ku xiro qalbigiisa oo dhanna uu hal shay siiyo taasaa waxay keentaa qofku in uu ku xirxirmo silsilado uusan weligii ka dhex baxayn markii waxa uu waayo murugaa booskii qofku ugu jiray ama waxaasu boosku ugu jiray murugaa beddelaysa iyo fakar qofkaasu wuxuu dhex gelayaa silsilad kale oo la yidhaahdo wixii ku soo dhaafay wuxuu mar walba xusuusanayaa wixii uu waayey taasaa waxay keenaysaa qofku inuusan marna silsiladdaa ka dhex bixin oo uu iska jebin kari waayo maxaa yeelay qalbigiisa iyo farxaddiisa iyo noloshiisa oo dhanba wuxuu ku xiray hal meel oo keliya taasaa marka waxay ku keenaysaa qofku inuu murugo ku dhex noolaado isla hadal uu galo qalbigiisa uu jabo noloshiisa oo dhanna ay saamayn ku yeelato marka uu waxaa waayo marka saa darteed noloshaada waxaad samaysaa farxaddeeda marna ha ku xirin cidna shayga lixaadan jeclaysta inaan idinla wadaagana wuxuu yahay xabsiga ugu weyn ee dad badani ku dhex nool yihiin waa waxay dadka kale ka aamini doonaan waxaanse doonaya inaan kuu sheego haddii fiidda ugu sarraysa aad ka gaartid horumarka adduunyadan wax ku naca waayimaysid si kastood horumar u samaysidba cid ku nacda la waayimayo waa waxaa dhadhanka u yeela in lagu naco lagu duro wax lagaa sheego lagu hor istaago lagu caayo waa waxa horumarkaagii dantaadaba ku jirto waa waxa micnaha macaan iyo natiijada qof kastaba marka uu helo uu ku farxo ka soo baxdo waa in wax ku duro la arko ogow dadku markay adiga wax kaa sheegayaan waa dadka aad ugu baahi badan tahay maxaa yeelay waa dadka keliya khaladaadkaaga ku tustusaya waa dadka keliya waxa aad ku fiicanteed ku wanaagsanteed ku farxadda gelinaya duraya waa waxa keenaya inaad badhaqaaqdid ogow haddii adduunka oo dhan dad laga waayi lahaa maadan samayseen waxa maanta horumar aad samaynaysid iskuul maad aadeen waxna maad barateen maad dhaqaaqdeen oo noloshaada kumaad fakarteen in tayadeeda aad kor u qaadid laakiin waxa keenaya maxay tahay waa dadka adduunyada kugula nool maalinta aad dhagaha ka furaysatid ood run ku noolaatid ood is ahaatid kuna qanacsanaatid waxa aad tahay waa marka keliyay kuu soo bixi karto natiijo kastood ku fakaraysid haddiise aad cid walba u istaagtid oo dhegaysatid inay ku durdurto markay ku durtana aad ka leexatid wixii aad ku socotay ogow xaasidiintu waa waxay rabaan ogow dadka ku necbi waa waxay doonayaan haddaba waxba daryeel ah ama wakhti ah ha ku bixinin inaad dhegaysatid dadka ku duraya oo damaca iyo heerka sare tiigsanaysid kaa hor istaagaya waxaadna ku noolaataa adduun la yidhaahdo ma kala jecli saamaynna noloshayda kuma lahan hadalkaagu shayga toddobaadan jeclaysta inaan idinla wadaagana wuxuu yahay cilmigu wuxuu ka yimaadaa waxbarashada xikmaduhuna waxay ka yimaadaan nolosha labadaa markaad isu geysid ayaadna heli kartaa isu dheelitirnaanta nolosha shayga siddeedaadan jeclaysta inaan fiideogan ku soo gabagabayana wuxuu yahay haddaad doonaysid inaad ku noolaatid himmaddaada tan u sarraysa dadka hadalkoodu marna yuusan saamayn noloshaada ku lahaan dantaada iyo damaca iyo waxaad u baahan tahayna yuusan kaa hor istaagin